munaasabadani ballaaran ee xilka kula kala wareegayeen agaasimihii hore cisbitaalka guud ee burco dr maxamed cabdi faarax iyo agaasimaha cusub ee cisbitaalka burco dr cabdiraxiin xiis cabdi ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen bahda caafimaadka gobolka togdheer isuduwayaal iyo guud ahaanba bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeynba munaasabadani ballaaran ka hadlay madaxa shaqaalaha cisbitaalka guud ee burco agaasimaha maxadka barashada caafimaadka ee gobolka togdheer isuduwayaal iyo weliba mas-uuliyiin kale waxaanay dhammaantood si weyn u soo dhoweeyeen agaasimaha cusub ee cisbitaalka burco iyagoo sidoo kalena agaasimihii hore cisbitaalka burco uga mahadnaqay waxqabadkii uu ka hirgeliyey cisbitaalka muddadii uu hayay xilkaasi. ogtihiin cisbitaalku maanta wuxuu maraya halkii ugu fiicnaa alxamdulilah. tafaasiil dheeraada agaasime maxamed cabdi faarax runtii 8 bilood ayaan la soo shaqaynayay macnaheedu waxyaabihii aan ka arkay waxaa ka mid ahaa runtii inuu ahaa shakhsi dulqaad leh ixtiraam leh dadaal badan daacada. agaasimahayga cusub doctor cabdiraxiin xiis isagana waxaan kula dardaarmayaa dee cisbitaalka ma aha doctorku qofka cusub nidaamkiisa iyo hawlihiisa waa ogyahay. maxamed waxaan leeyahay waa nasatay shaqayntaad qaban karaysay intaad tijaabin karaysay waad samaysay dee allah kaa jisaa siiyo dr cabdiraxiim jaahil fureen baa loo horta kartidiisa iyo muxuu ahaay firfircoonidiisa mas-uuliyadma jiro firfircooniyaada iyo aqoontaada inaad mas-uuliyad ku darsato kalsooni ku darsato. agaasimaha cusub ee cisbitaalka loo soo magacaabay doctor cabdiraxiim ilaahna waxaan uga rajaynayaa in ilaahay subxaana wa tacaala xilka u fududeeyo. runtii waanu soo washaqeynay maxaa cad faarax waxaan oga garaa raggii ugu mudnaa buu ahaa xafiiska joogay دكتورك عصيب هل كل يوم يروح الليل ما أنت فرحت ما أنت أصلاً محمد عبد الفارح أيام الشغلة كل يوم حاول ترد بسويس. geestoodana waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimihii hore cisbitaalka guud ee burco dr maxamed cabdi faarax iyo agaasimaha cusub ee cisbitaalka burco dr cabdiraxiin xiis cabdi. farxad ay tahay maanta inaan wadajiyo xilkii iyo mas-uuliyaddii cisbitaalka guud ee magaalada burco oo laga magacaabay dabayaaqadii 2021 8 bishii koowaad 2021 farxad weyn waana sunaha dowladda waxyaabaha runtii xuska hore kusoo kordhinta joogay cid kastoo laga shaqaysan aan aad u mahadcelinayo maadaama ay mudan tahay in la mahadceliyo dhismaha hore cisbitaalka waxaan soo kordhinay qayb runtii kor u qaaday muuqaalka iyo heerka cisbitaalka oo maanta markastoo sawir cisbitaalka leeyahay ama kamera lagu qabto waxyaaba kale saddex ka mid ah xilliga cisbitaalka covid-19 buu jiray waxaana nimid iyagoo beeshiyadu jiifaan waa qadiimka taas waa aan dagaha dadka ku soo cisbitaalka kadib waxaan ku diwaaday in la sameeyo meel cusub oo maaragta kala dhigo habeyn iyo dayactir ku sameeyay waa qaybta TV oo maanta ay runtii shaqada cisbitaalka hayso ama gobolka waa isolation warkaas oo dhismihiisa runtii iyo dowladda cisbitaalka lahaa marka dambena naga saacideeyay hay'adda amsan cisbitaalka waxaa kusoo kordhinay qaybo cusub ama dhibaatooyin cusub oo aad ugu wareysay laga daafuro ay ugu horeysa qaybta ilkaha oo laga caawiyo iskuulaasi oo aad ugu celceliyo qalabintiisa naga saacideeyay waxaa soo kordhinay cisbitaalka markaa la wareegay gudaha cisbitaalka qaybta haruur jumla shaqeynaya haweenaad egisreebo ugu yaran jirin waxaan soo iibinay cisbitaalka qaybta haruur jumla cisbitaalka afriga egisrey adduunya iskan adduunya afrison adduunya waxaa loo tirishay dowladda ka horeysa si dakhliga oo madax cisbitaalka maanta waa maalin weyn waa maalin maxay ahayd tolay ku qaaliyo shaqaalaweynaha caafimaadka sida sunnaha dowladnimadu uu sheegayo waxaa sharciya inuu qoriisu dhiiba u yahay. waxaan maanta doonayaa halkan uga mahad celiyo agaasimihii hore dr maxamed cabdi faarax oo shaqo aad u quman soo qabtay run ahaantiina ku mutaystay in lagu abaalmariyo maxay ahayd tolay hadal wanaagsan iyo thank you qof kastoo inoo soo shaqeeyey inaynu yahno waad mahadsan tahay oo waxaa mudan yahay. waxaan ballan qaadayaa oon halkan doonayaa inaan ka caddeeyo inaan nafhur la iman doono insha allah. markaa laakiin waxaan rajaynayaa inaan halkan kor uga sii qaadi doono ducada iyo maxay ahayd toolay garab istaaga ayaan maanta u baahanahay haddaan ahay agaasimaha maanta cisbitaalka bare lagu wareejiyey xilkan lagu wareejiyey waxaan rajaynayaa garbaha cisbitaalka ku dhoolayo hadday yihiin shaqaalaweynaha caafimaadka qaybta dhakhaatiirta waxaan ku wargelinayaa
waa arrin emergency waa arrin u baahan maanta cusbitaalkooda in lagu kala qaadaan anigoo qadda ay kantor ka baanay kaxaynaysa anigu waxaan doonayaa inaad gacantiina wax kula soo bixdaan inaad cusbitaalka aydan ugu hallaynin ee aad ila garab istaagtaan anigu 7 sano ayaa maanta cusbitaalka ii buuxda agaasimihi ka horreeyay maxamed waa la shaqeeyey maxamed waa la shaqeeyey sidoo kale waxaa taagan oo maanta aan fashion ahayn oo aan shaqeynaynin oo hawsheeduna aad u taagan tahay waa mashiinkii oxygen-ta laga jiray ee cusbitaalka guud ee Burco isaguna ma shaqeynayo maanta laakiin waa shaqeynoo taalla inaan Burco ka wada shaqeyno maaha shaqo keliya maanta keliya ii taalla waa shaqo maanta gobolka Togdheer looga doonayo in gaarsiiyo cid kastoo ay khusaysanayeen si waxaan uga qaban doonta iyo rajaynaya waxaa sidoo kale isagana qayb ka mid ah ladaysan oo hawshiisu maalmahan ka taagan tahay oo beeraha u badnaa cusbitaalka barnaamijka electricity-ga cusbitaalka waxaa maanta taagan ogahay inay 24 sed oo ka mid ah badbaadiyaha solarka ku shaqeeya cusbitaalka guud ee Burco aan u shaqeynaynin isagoo maanta keenaya in laga fara badan keenaya oo cusbitaalka mashiinada shaybaarka ku shaqeynaya qaano badan ee barnaamijka ay ka mid yahay isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Maxamed Cabdi Axmed Abwalad oo dhankiisa munaasabadaasi ka hadlay ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa sida tan agaasimihii hore waxaan wada shaqeynaynay muddo sanad ah waxaanu soo wada qabanay howlo adag oo qarankan aanu soo wada qabanay agaasimaha cusub markii hore waa soo dhaweynaynaa waxaa ku yaallaa waa shaqadaasi baa lagaaga baahan yahay inaad ku fogaanaato inay hadafkaagu ahaado uun shaqada iyo qofka jilicsan ee beeshinka ugu dambeyntii isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyey agaasimihii hore iyo agaasimaha cusub ee cusbitaalka Burco iyadoo shaqaalaha bahda caafimaadka gobolka Togdheer ay shahaado sharaf ku maamuuseen agaasimihii hore cusbitaalka guud ee Burco waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Somaliland Burco.